ما شاء الله waxaynu sameynay invitation aad iyo aad u qurux badan isla markaasna la habeeyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بدعوة كسو دوادا كنالك Islamic Technology sidoo kale kusoo dhawaada muuqaaladii taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay application loo yaqaano PixArt oo ah application qaabka Photoshop oo kale u shaqeeya isla markaasna ay isticmaalaan dadweynaha graphic designer-ka ama graphic designer-ka wax badan ka garanaya. application-kan runtii waxaynu hore u soo qaadanay 9 cashar ama 9 muuqaal oo hore kana waa muuqaalkii tobnaad. muuqaaladan haddii aanad soo daawan waxa muhiim ah inaad muuqaalada hore soo daawato si aad noola qabsato. sidoo kale haddaad u baahan tahay application-kan oo free ah 100% commentiga ugu horeeya ayaad ka download garaysan kartaa. insha Allah taala maanta waxaynu samayn doonaa haddii eebaha wada inoo ogolaado invitation-ka aroosyada ama martiqaadka aroosyada insha Allah taala. sida awgeed marka ugu horeysa application-kan soo furi doonaa haddii eebaha wada inoo ogolaado. kadib markaynu application-ka soo furno halkan hoosta calaamada wadarta ayaynu ku dhufan doonaa marka ugu horeysa. isla markaasna waxayna soo bixi doonaa canvas-kan ama area-dan oo kale ayaa ku soo bixi doonta haddii ayna area-dan ama canvas-kan oo kale ku soo bixin. waxa muhiim ah inaad casharkii ugu horeysay daawatay si aad u fahanto waayo dadka waxa ugu soo baxaa interface kala duwan baa u soo baxa ama qaabab kala duwan waxayna ku xiran tahay dadku wadanada ay joogaan bay ku xiran tahay inta badan. marka halkan ay ku qoran tahay edit photo ayaad raadin doontaa haddii aad run ahaantii aanay ku soo bixin shaashadan meel ay edit photo ku qoran tahay markaad raadiso insha Allah taala. isla markaas aniga waxa uu geeyay gallery-gaygi adigana wax laga yaabaa inuu ku geeyo meelo kale. marka insha Allah taala marka ugu horeysa waxaad ku dhufan doontaa meel ay ku qoran tahay background ayaad raadin doontaa insha Allah backgrounds. halkan ku muuqata run ahaantii waxa weeyaan gallery-gaygi inuu muuqdaa muhiim aha. marka backgrounds-ka markaan ku dhufto isla markaasna waxa ay soo bixi doona background kala duwan oo halkan hoosta ah. anigu laakiin kuwa uma baahni waxaan u baahanahay background-nadan color-ka khaaska ah leh marka waxaan dooran doonaa color-ka cadaanka ayaan dooran doonaa insha Allah. marka aan color-ka ugu horeysa aan doorto waxaanu samayn doonaa invitation-ka marka invitation-ka size-kiisa weyn halkan aynu ka dooran doonaa halkan aynu ku dhufan doonaa halkaas ay ku qoran tahay tools. kadibna haddana crop meesha ay ku qoran tahay ku dhufan doonaa. isla markaana halka ku dhufano kadib size-ka halkaas aad ka arkaysaa marka halkaas aynu ku dhufanaa insha Allah. kan waxaynu ka dhiganaa hore ama height-ka waxaynu ka dhiganaa ama ka dhererka 650 baynu ka dhigaynaa insha Allah. halkaynu kan kalena insha Allah taala ka dhigi doona haddii la yiraahdo 1063 aynu insha Allah taala ka dhigi doona. kadibna okay aynu ku dhufanaa oo tan ah halkan aynu ku dhufan doonaa okay-da kadibna qaabkaas uu soo yaraado invitation-ka size-kiisa ayuu yeeshay kadibna calaamada sare ee tigta ayaynu ku dhufan doonaa insha Allah. markaynu hawsha qabanayno inta haddii la yiraahdo dhameystirno shaqada ugu horeysan qabanayna waxa weeyaan inaynu halkan ku sameyno fulki yara iyo waxoogaa sharaxaada area-dan iyo area-daas baynu ku sameyn doonaa. si aynu ugu sameyno marka ugu horeysa waxaynu u baahanahay halkan tagaska ayaynu kala soo bixi doonaa hal xaraf insha Allah. tagaskaas marka meel ay tagas ku qoran tahay marka ugu horeysa raadin doontaa insha Allah. ani waatan tagaska markaan ku dhufto kadibna halka waxaan ku qori doonaa xarafka I oo capital ah ama E oo af Soomaaliya oo capital ah. isla markaasna hal mar baynu waxa siin doonaa calaamada tigta halkaas aynu ku dhufan doonaa. kadibna I-daas waa black ama waa madow kadibna color-keega inuu bedeli doonaa halkaas baynu ku dhufan doonaa. halkaas color-kaas aynu ku dhufanaynaa isla markaasna color-keega tusaale waxaynu ka dhiganahay guduud kadibna haddii la yiraahdo halkaas baynu qabanaynaa saas baynu u jeedinaa. marka koornayaasha wuxuu ku leeyahay calaamado yar yar oo ku kala sheegaya sida aydu noqotay kadibna saas baa waxoogaa weyneynayna kadibna weli hadda dhinacaasan u jeedinaynaa kadibna koornayaasha waa flexible wala jiidi karaa sida kaga muuqata haddaynu select garayno koornayaasha halkan wala jiidi karaa koornayaasha. marka koornahaas aynu qabanaynaa waynu balaarinaynaa ayda shape baynu ka dhigaynaa maanta xaraf ahaan uma isticmaalayno. area-daas baan dhiganaynaa si aynu mar dhow toolo wax ugu qurxino waxa aynu rabno. isla markaana halka aynu dhigno marley color-ka waxaynu ka dhigi doonaa haddii la yiraahdo waynu sii qurxin doonaa laakiin halkaas aan dhigaynaa marka ugu horeysa. tiyo halkaas inoo taalo inoo select garaysnayn banaankaas aynu taaban doonaa selection-ka aynu ka qaadi doonaa selection-kaas aynu ka qaadna banaanka ma taabanaysaa. isla markaasna waxaad ku dhufan doontaa halkan sticker-ka hoostaad ku dhufan doontaa sticker-kaas si fiican ugu muuqda insha Allah taala rajeynaya. kadibna halka waxaad ku qori doontaa insha Allah taala gift ayaad ku qori doontaa gift ribbon baad ku qori doontaa. ribbon markaad aarta ugu horeysa qorto waad halkan kaga soo baxaysaa waad ku dhufan doontaa. isla markaasna waxaynu isticmaali doonaa shape-ka waxyaaban baynu isticmaali doonaa haddii la yiraahdo. marka shape-kaas aynu iska qaadanaa insha Allah ama waxaynu qaadan doonaa gift ribbon-ka yar baynu qaadan doonaa halkaas baynu saasaysan u kala wareejinaynaa isku qaab baynu ka dhigaynaa kadibna waxoogaa baan yara weyneynayaa haddana saas baynu yar jeedinayaa haddana waxoogaa. sidoo kale haddaynu halkan iska soo dhigno waxaa marka ugu horeysa muhiima waxa weeyaan
halkaas horta kaas ay noo yaalo waxa muhiim ah in labadan isku kala noqdaan kan iyo kan in isku kala noqdaan iyo kan marka labadan isa isku kala noqdaan waxa muhiim ah oo markasta lagama maarmaana waxa weeyaan in aynu kalarka ribbonka aynu qaadano aynu kan ku darno marka ugu horeysa waxaan taabanaynaa xarafkii ayda ahaa ama shape-ka casaanka ah aynu taabanaynaa oo select gareynaynaa kadibna markii kalarku halkan hoosta inooga soo baxo kalarkaas baan taabanaynaa kalarka markaan taabano halka waxa inooga soo bixi doona qalinka ayar baynu taabanaynaa si aynu kalarkiisa u soo qaadano qaabka loo soo qaato hore inuu aragnay muuqaaladii hore soo daawan doonta hadaan si fiican u fahmin hadaan si fiican imigay fahmin kadib waxaad arki doontaa circle kolba meesha la duldhigo u eegaanaya mar haddii casaanka la duldhigo ama guduudka la duldhigo guduud buu noqonayaa haddii cadaan la duldhigana cadaan buu noqonayaa haddii casaanka kale la duldhigo ama guduudka kalena guduud ayuu noqonayaa marka calaamada centerka isku geynta ayaad wax taabsiin doontaa shakligan ayaad taabsiin doontaa insha Allah in meesha soo dhiganay kadibna markaynu saa u taabsiino way isku eegaan doonaan hadda way isku eegaadeen halkaas baynu waan is duldhigaynaa hadda si fiican bay iskugu eegaadeen kadibna shape-kan waxoogaa aynu habaynaynaa waan saasaynu iskugu sarjaraynaa ama si fiican baynu isku leegaysiinaynaa kadib waxaan samaynaynaa intaas markaynu shaqada aynu qabano kadibna halkan stickerskaynu mar kale ku noqonaynaa kadibna halka waxaynu ku qoraynaa line ayaynu ku qoraynaa insha Allah line marka ku qorto layman ayaa ku soo bixiya kala duwan marka line cad baynu raadinaynaa line cad waxa ku garanaysaa meeshiisa ayaa maran inta badan layman bartan ku arkaysaa kala duwan ama kuwa dhadhooda ama kuwa madow marka line cad baan rabnaa marka line cad waa kaas inta badan si fiican inuu kugu muuqan baa laga yaabaa laakiin marka isticmaalaysa waad arkaysaa laakiin shaashadeena kaaga muuqan baa laga yaabaa halkan soo dhex galay shaashad cad dul yaala isma muuqdo laakiin markaynu halkaa dul dhigno si fiican u muuqanaya waad arkaysaa imika si fiican buu kugu muuqdaa marka saas baan u jeedinaynaa kadibna halkaas baan dhigaynaa qaabkaas baan u yara dhigaynaa xoogaa waynu ku yar qurxinaynaa ujeedkeenu waa inaynu ku yar qurxinno kii kalena waynu habaynay si fiican oo qurux badan baynu u habaynay isla markaasna waxaynu u baahannahay haddana mar kale inaynu halkan tagaska aynu tagno ama tiida kadibna aynu ay haddana shape-ka aynu ahaan inuu isticmaalo ama xarafka e kadibna xarafkii cad baa inoo soo baxay kadibna halkan kalarka ku dhufo kadibna kalarka qalinka yar ku dhufo kadibna tii hore taabo oo isku eegaanayaan markaas kadibna saa isu soo jeedi kadibna saa u dheeree u fiirso sida kuu muuqata runaantii eg waxa weeyaan frame baynu hadda samaynay halkana waxaynu ku samaynay sheegeen ID shape ahaan baynu u isticmaalay marka xarfaynu ka faa'iideysanaynaa in badan xarfaha laga faa'iideystaa sida awgeed waxoogaa hadda waynu soo yara qurxinay sidoo kale waxa muhiim ah haddaba intaa kadib waxaynu insha Allah tacaala ku soo dari doonaa halkan qoraaladii baynu ku soo dari doonaa insha Allah loo baahnaa invitationka isla markaasna si aanay kuwan inooga dhaqaaqin kuwan aynu loo galaysanaynaa insha Allah laakiin intaan loo garaysan waxa rabaa kanaan rabaa inaan stroke yar u sameeyo kornayaasha saa intaan hal mar u taabto oo shape-kan kan stroke u sameeyo u fiirso hal mar markaad saa u select garayso kadibna halkan border-kaas ku dhufan doontaa boundary-gaas ku dhufan doontaa ama border-kaas ku dhufan doontaa kadibna cadaan buu marka hore select garaysan yahay waxaad arkaysaa inuu waxoogaa kornayaasha ku yeeshay cadaan fara badan marka waxoogaa baan yaraynaynaa ilaa iyo 4% ayaan meelahaas aynu ka dhigaynaa banaankeenu taabanaynaa hal mar markaad banaanka taabato dhag saasay ku dhan tahay marka shaqo badan kulli uma baahna mar haddii tigta la saaro ama sa loo verify gareeyo markasta waxa muhiim ah insha Allah tacaala inaynu halkan ku dhufano oo aynu dhammaantood wada loo garayno hadda laga bilaabo tig baynu saarnay waxba kama bedeli karno si kasta aad u taabato waxba kama bedeli kartid sida awgeed waxaan ujeedkeenu yahay inaanu inaga dhaqaaqin ama wax dhaqaaqa aan inaga iman marka insha Allah tacaala waxaan samayn doonaa halka waxaan ku qori doonaa qoraaladii baynu ku qori doonaa meher waxaan iyo waxyaabo la midka ah isla markaasna halkan tagaskaynu dooran doonaa ku qori doonaa meher waxaan aynu ku qori doonaa kadibna calaamada tigtaan saari doonaa kadibna wali hadda waa cadaan kadibna wali hadda kalarkaynu qaadan doonaa kalarka wali hadda isku eegaysiinaynaa kalarka qaabka loo iskugu soo daro hore inuu aragnay kalaraadna kalena waa dooran kartaa midabada halkan yaala oo dhan waa isticmaali kartaa hoosta laakiin kaas waxaan u dooranaya waxa weyn isku eegaadaan kadibna waxa weeyaan fartan xoogaa baynu halkaas bandhigayaa laakiin fartan waxa weeyaan qurxino inuu ka dhigno fartii inta badan weddingka ama aroosyada loo isticmaali jiray sida awgeed mar walba waxa muhiim ah inaynu halkan ku dhufano aan farta inta doorano farta markaan doorano halkan waxay nooga imanaya ii sheegeen calaamadaas aad ku arkaysaa kadibna fartaynu bedelaynaa marka shalay tooraynu soo aragnay iyo casharadii kasii horeeyay baynu soo aragnay qaabka farta loola soo dego marka halkan aynu ku dhufan doonaa insha Allah halkaas aynu ka raadin doonaa fartii aroosyada ama waxa loo yaqaan wedding calligraphy fonts-ka marka ereyadaas aad ku baari doontaa
ereyada xagga sare ugu qoran ama wordska wordin sala graafin fontska ereyada loo yaqaano kadibna meelahan baa ka raadin doontaa aduu farta ay is leedahay waa macquul ama uu ku soo baxayaa marka aniga farta dooqayga baan kulli tola isticmaali doonaa adigana waxaan rajeynayaa inaad far dooqaaga kulli tola isticmaali doonto insha allahu tacaala marka taas mar walba muhiima marka anu ilaa hadda waan raadinayaa fari qancisa kulli aad uma si qurux badna laakiin already inaan waqti badan naga luus garaysa ma rabo inaan wax raadino kadibna waxoogaa strogaas aynu ugu darno ama inuu xoojino strogaas aynu ku dhufanayna taas aynu taabanaynaa isagana waxaynu ku taabanaynaa calaamadda qalinka deetana kanaan kusoo daraynaa strogi markaa u weynaaday waxoogaa halkan hoosta aynu ka dhimaynaa halkan u fiirso halkaas ayaynu yaraynaynaa markaa stroga waxoogaa farta inay awood ha yara yeelato sidoo kale halkaas bay si fiican ay ugu qoran tahay markaas halkaas baynu dhignay waa far sida kale iska habaysan kadibna waxaan ku qori doonaa halkan waxyaabihii meher wacan aduu farantiska oo dhan baan dhamaystiri doonaa insha allah anaga waxoogaa yara dedejinaya marka haddana mar kale tagaskaynu ku noqon doonaa insha allah asxaabta qaaliga ah runaantii sida weyn farta waxoogaa baan yara dedejinay fartaas baynu kusoo darnay ama ereyada inta badan la yidhaahdo aabe hebel hebel waxa idinku marti qaadaya arooska caaisha iyo cabdalle baynu magacyada iskaga bixinay waa magacyo iska saambala isla markaa baynu qoraaladii hadda waynu dhammaystirnay qaybtii koowaad marka waxaynu u baahannahay halkan inaynu kusoo darno franti ama fargal kolba saa u taqaano kadibna waxaan tegi doonaa halkan stickerskaynu ku dhufan doonaa kadibna halka waxaynu ka raadin doonaa ringi wedding ayaynu ka raadin doonaa isla markaasna hoos baynu u socon doonaa kadibna mid ka mid ah farantiyadan baynu iska soo qaadan doonaa ama qaar ka mid ah kaas baan yara jeclaaday aniga kaas baynu insha allahu tacaala aynu ku dari doonaa kadibna markaynu halkaas oo kale aynu soo dhigno u fiirso halkaas baan soo dhignay kadibna markaynu halkaas saa usoo dhignay waa hadda waxa weeyaan labadii magac buu u dhexeeyaa si fiican baa loo arkayaa isla markaa insha allahu tacaala markaynu hawsha aynu dhammaynayno halkaas soo dhigno kadibna halka waxaynu ku qori doonaa ducadii baynu ku qori doonaa ducadana halkan tagaskaynu mar kale ku noqon doonaa waxaynu ku qori doonaa ducadii insha allah ducadii halkan aynu soo dhignay ducadii waxa weeyaan far cadaana bay ku qoran tahay markaa farteeda waxaynu ka dhigi doonaa madow mid balaakaynu taaban doonaa kadibna fartani waa aad bay waaweyn tahay isla markaasna fartani ma aha far aad u habaysan kadibna halkan fontskaynu ku dhufan doonaa halkaas calaamadda fontska marka ku dhufato tan ayaa kusoo bixi doonta kadibna waxa weeyaan halkan waxaynu ka raadin doonaa arabic fontskaynu ka raadin doonaa arabic fontskaynu ka raadin doonaa kadibna far kala duwan oo ta carabiga baa inoo soo baxday okay halkan kulli toole fartu si fiican uma muuqato laakiin faraha aan isticmaalo waxa ka mid ah taa ay ku qoran tahay Medina regular ama Median regular kadibna taas bay way fiican tahay waxoogaa baynu saa u yaraynaynaa u jiidaynaa marka waad u fiirsanaysaa qaabkaas aynu ka dhignay okay intaa kadib wax kale uma baahnin kaliya waxay naga maqanoon in waqtiga iyo goobta iyo goorta iyo taariikhda iyo saacadda waxaas aynu ku qori doonaa kadibna hal mar baynu tagaska tegi doonaa kadibna waxaynu qori doonaa haddii la yidhaahdo ka soo qaad haddii la yidhaahdo meesha hotelka in la yidhaahdo waa tusaale waxaynu u bixinay SR hotel ayaan ku qorayaa waxoogaa space baan yara durkayaa ilaa 3 dhod ilaa 4 dhod meelaha ayaan yara durkayaa kadibna waxaan qorayaa taariikhda ayaan qorayaa tusaale ahaan taariikhda waxaan 12ka bisha koowaad ama waxa weeyaan 01 aan qoro kadibna aan qoro 2021 ama 2022 aan qoro taariikhdu macna ma leh tusaale waa sample kadibna waxoogaa 3 space baan ka durki doonaa kadibna maalintaan qoriyaa tusaale ahaan ka soo qaad bayna maalintaasi tahay 4 waa tusaale uun aniga maalinta ma eegayo maalinta ay ku beegan tahay isla markaasna waxaan qorayaa 3 space baan ka durkayaa 3 space marka ka durko kadibna waxaan qorayaa haddana allah musta'an waxaan qorayaa waxay waqtiga tusaale ahaan ka soo qaad bayna tahay 5:20 raaci PM oo AM gelinka hore mise gelinka dambe gelidba ka soo qaad kadibna halka calaamadda tigtay sare ayaan ku dhufanaysaa fiirso kadibna fartu waxa weeyaan cadaan weeyaan marka cadaanku kuma muuqanayo ilaa xagan u soo riixdo oo halkan aynu dul keeno kadibna xoogaa baynu u kala jiidaynaa ilaa ay saacadda iyo time-ka waqtiga waan ya xoogaa asaas sidoo kale xoogaa baan yaraynaynaa haddii fartu ka yar fool xun tahay far kale waa iska dalban kartaa anigu saas baan ku daynayaa hadda waxa weeyaan invitation-kii waxba kama dhina invitation-ka meherada caadiga ee card hadda waa daawacan kartaa imika caadi baad u daawacan kartaa si normal ah u daawacan kartaa hotelkii ama masaajidkii ama meeshii goobtii la iskugu imanayay invitation waad samayn kartaa marka invitationka arooska haddaad samayn karto ka waxbarashada ka shirarka kale ka wuxuu doono waad samayn kartaa noocuu doono laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha la isticmaalayo
sidoo kale haddii aan waxoogaa aan ku yara daro halka haddii aan ku yara noqdo halkan ducada koornayaasheeda waxoogaa waxaan yara dhigi doonaa loof ah marka ducadii waxoogaa saas baynu u yaraynaynaa kadibna halkan stickerskan tegaynaa kadibna waxaan ku qoraynaa keliya wax kale kuma qorayna loof ayaynu ku qoraynaa kadibna waan search garaynaynaa okay kadibna labadan loof ayaynu kusoo dari doonaa hal mar baynu saa u taaban doonaa insha allah kadibna hal mar baynu saas u taaban doonaa kadibna halkaas baynu usoo riixi doonaa waxoogaa baynu saa u yarayn doonaa halkaas baan dhigi doonaa weliba aan soo weyneyno kadibna mar kaleynu koobiyin doonaa si loo koobiyeeyo halkaas sare aad ku dhufanaysaa halkaas sare aad ku dhufan doontaa kadibna duplicate ka taaban doontaa kadibna halkaas baa u durki doontaa kadibna waad soo dhaweynaysaa haddana kadibna saas baad odhanaysaa waxaad moodaysaa weli haddana space-ku uu ku yar yahay halkaas baynu u durkanaynaa waanu daba keenaynaa kadibna halkaa hoostaa ku dhufanaysaa kadibna tan ayaad ku dhufanaysaa taas oo ah marka dhanka loo kala jeedinayo dhanka uu eegayo ma dhan kale marka la eegsiinayo saas oo kale ayaad ka dhigaysaa kadibna waxoogaa kor baad yara qaadaysaa kadibna waxaan oo dhan haddii shaashadu kaa wada xidhanto halka calaamadda wadartu maad ku dhufan doontaa koornaha kadibna automatical wuxuu noqonayaa halkii uu ka yimid kadibna labadan aan waxoogaa isku soo durkiyo okay waxoogaa yar naashinaynay wax kale shaqo kale ma baahna saasuu ku dhammaystiran yahay maasha allah waxaynu samaynay invitation aad iyo aad u qurux badan isla markaasna la habeeyey waxaan rajeynayaa inuu qof walba si fiican u fahmay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh